fiid wanaagsan dhammaan asxaabta la socota channelka Qaraax Tube waxaad ku soo dhawaataan waxyaabihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga heshiisyadii dhacay iyo hadalhaynta kubadda cagta saacadihii ugu dambeeyay heshiisyada dhacay suuqa kala iibsiga waxaa kamid ah inay Barcelona ku dhawaaqday saxiixa difaaca lagu magacaabo Clement Lenglet kaas oo ka yimid kooxda kubadda cagta ee Sevilla ciyaaryahankan waxaa heshiiskiisa lagu dhameeyay 36 milyan oo lacagta Euro-ga ah 5 sanadood ayuu u saxiixay kooxda Barcelona waxaana sida lagu xaqiijiyay page-ka Barcelona qaybta Twitter-ka sidoo kale Liverpool ayaa saacadihii ugu dambeeyay warcada ka soo saartay inay dalab ka gudbisay goolhaye Alisson Becker Liverpool waxa ay sheegtay inaysan dalban Roma goolhayaheeda Alisson Becker sida laga soo xigtay majalada Sky Sports Cristiano Ronaldo ayaa isniinta mari doona tijaabada caafimaadka ee kooxda kubadda cagta Juventus Allianz Stadium ayaa isla fiidkii isniinta lagu soo bandhigi doona isagoo taageerayaal badan halkaas kula hadli doona Sky Sports Italy ayaa sidaas warisay sidoo kale Barcelona waxay dhameystirtay saxiixa ciyaaryahanka lagu magacaabo Arthur kaas oo ka yimid Brazil kana mid ah xidigaha qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Bulgariana ku soo biiray majalada ka soo baxay dalka Talyaaniga waxa ay baahiyeen saacadihii ugu dambeeyay in Chelsea ay shaqada ka burisay Tobare Antonio Conte kaas oo la arkay gaari qaas ah inuu ka soo kaxeeyay xirada tababarka ee kooxda Chelsea balse wali Blues si rasmi uma shaacin go'aankaasi Barcelona ayaa 53 milyan ku dalbatay garabka Chelsea William sida ay warisay Sky Sports waxayna Barcelona qorsheynaysaa inay soo qaataan ciyaaryahanka reer Brazil Real Sociedad waxay la soo wareegtay xidiga reer Spanish ee qadka dhex ka ciyaara Michael Moreno oo ka yimid Newcastle 12 milyan ay ku soo qaateen xidigaasi Gonzalo Higuain ayaa la filayaa inuu ka mid noqdo xil ciyaareedka soo socda ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Chelsea Mauricio Sarri ayaa damacsan inuu soo qaato ciyaaryahankiisa intaas waxay ahaayeen waxyaabihii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga heshiisyadii la sameeyay dalabadii la gudbiyay iyo sidoo kale shakhsiyaadka laga buriyay shaqada ay ahaayeen